عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك يا رسولي صلاة الله عليك سلام الله عليك يا مصطفى سلامي عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan doonayaa inaan ku soo gudbiyo gabagii la magac baxay umulgana weyne. waxaan gabagan alifay ama uu ugu dhashay markii umul aflagaadeeyay nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam. wuxuu mar labaad ugu dhashay gabagan markan arkay gabay ku jira aalada YouTube-ka. gabagaas oo umul lagu difaacayo isla markaana lagu qarinayo ama lagu daboolayo gafkiisa iyo been abuurkiisa. waxaan alifay gabaga anigoo gaari saaran ma haysan qalin iyo warqad, laakiin si 10 page oo ugu horeeyay ayaan maskaxda ku soo qabtay. guriga markii aan imidna waan dhameystiray ka bogasho wacan. gaalay gabayba waataan ka tagay ama sageeraare goorahan dhawaytaba ma curin waan ka gaabsaday inaan garanba waayana ma ahan saan u gooyay xishood baa yara galay ilaan gabar ayaan ahay. ma anaba gabayada jeclaa goobale istaaga gabay maanan tiri jirin sidii goore iyo dhirisay. wuxuu say ilaah igu galaday waan gudbinayaa nabiga loo gafana difaac waa gar iyo waajib cid kasto aan garayn buu xitaa soo galgalayay cid baa igu bayay abwaan maanan wali gaarin. intaas waan garfeeyay haddaan gaaro dulucdeeda waxay garanba waayeen haddaan goobta wada keeno maansada intaad iga gurtaan maqalka gaarsiiyo. qoom gaaja dubataa yimid oo gaara raacyahay gafuurduub waxaa soo baxeen diinta gadayaane bidcawada garweyn oo sirwaal gaaban baa timid tawxiidkii wax googooyay baa eega soo galay badil guurayaa soo baxo gaari lagu keenay waajibkii wax gabayo sunnihii gaasiraa yimid dad bidcada gargaara islaamkii galaafsaday go'nayay haddaan ahlu sunna saacna garab joogin. gurmadkii carbaha nooga yimid wuu nagaag tiray go'culuma intay soo xirteen soo nimay gelin go'aankoodu soo tuu ahaa gowrac iyo miino gorgor hilib u jeeday sidii noo gowsanayeen. go'aankoodu waa inaan yahuud garab istaagnaaye go'nayay haddaan ahlu sunna saacna garab joogin. bal maxaa gadaal dhacay jawaab gaaban iga hooya galgaduud markii la isku helay gada banaankeeda maydkoodu waa tuu garabsana garijir loo gaaro cabud waq markii la isku galay loogu gacan sheegay dhuusa mareeb 6 saac galin horaad guushii lagu meeri guriceel gumaadkii ka dhacay looma gala kaase tima jilc waa tuu garabsana beledka geeskiisa. geeridiisa awgeed waa tuu cadow gamaanyooday godaniyo ina shagala waatay gacanta taageene galgaduud ina aways xabsiga loogu garab sheegay kala cararku waa tuu gilgilay reer gafuurduube go'nayay haddaan ahlu sunna saacna garab joogin. gumaysiga waxaa diiday oo xaqa gargaarayay gobonimo waxaa soo dhacsho dhiig ka gobaleeyay geeridu xaq weeye waxaan seexan galin toona ilaahay wuxuu garab galo diinta garab joogay sida reer gafuurduub waxaan ganacsan xaaraamta suufiyaal ilaahay u go'ay goriyo ayaane go'nayay haddaan ahlu sunna saacna garab joogin. ma haddaas waxaa guud iskale guulle kaligiisa mid gaarana waxaa mudan geesiyaashii gullow ilaahu adaa diinta gacan siiyay. gabagabada maansada haddaan gaaro hadafkayga waxa aan gocanaya qalbiga iga gubaa sheego gana weyne umal baa nabiga gaaray sharafkiisa gabayana mid baa tiriyay oo taa ku garab joogay aflagaadadu geystay bay gacan ku siiyeen gablamooyin miyaanay ogeyn umul ku gaalowya. aniguna xaqiiqdii magana waxa i soo gaaray gam i waayay goortii aan maqlay gafka hadalkiisa galiiliya i qariso gacmaha saaray madaxayga gubtayay jirkaygo dhan baa ololay goortaas. nabigoo la gaarana waa gabadfal diineede gaalnimo inay tahayna waan soo garwaaqsaday guud ahaan quraanka nafarisaad u garateen xadiistii la soo guuriyaa gooni noo sheegay iimaanka ka guuray miyuu diinta garan waayay. cilmigo dhan baa gees ka maray naarta lagu geeyay dambigaad gashaan abid go'ayn heedha gana weyne wax kastood garmoodana ilaah wuu ku garanaade qof walbana wuxuu go'ayaa saacad iyo goordhe beertuu fashuumira ka goran sida la soo goorshay qabrigii madooba markii maalin lagu geeyo malaa'iga garuun kula dhaco madaxa ka gooye gargariir su'aalaha markaas halna garan waay godku kooma kugu noqay waxaad geysataa badan.